ardada ku tartamaya ka kala socdo madaarista madrasatul iimaan iyo madrasatul iqdaad iyo madrasatul ashaafici. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وخلانه واقتفى أثر وسن سنته إلى يوم الدين. فأحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم ونتبوأتم مع سيد الدعاء وإمام المرسلين في جنة ودار مقامة إنه ولي والمولى والقادر عليه. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب أيوة السجايين مدرسوي مدوي أمكم مدوي أمكم تعالوي كلام إلهي سبحانه وتعالى إني كتب تسيان جيل كان أنتو قرق بدن ويلا اليوم لو نترتمي دونا ستة الجزء القرآن والوصية إن شاء الله مسافة بدينا وحيوم حيسا إن شاء الله ستة الجزء مدرسة المادة مرتقاتي أم عزيزان وفد سيدوسية أنتو قرق بدن مدرسة الإيمان iyo madrasatul imam shafi'i madrasatul iqdam wa muassasoyinka beeyada taandiga waraaqada badan macallimiin shiiba qurux badan soo saara aad u diyaariyaan arday kuna tartami doona aayadaha quraanka iyo qolka saddex juz ay ku tartami doonaan sida la sheegay su'aasha koowaad waxay u baahan tahay insha Allah u sheegay waxay tahay waa ardada musaabaqada ama tartamaya su'aasha koowaad waxay u dhici doontaa hal bad ayaad akhri doontaa insha Allah hal bad baad akhri doontaa su'aasha labaad waxaad akhri doontaa kalbar badii lagu kalbari doonaa su'aasha kale waxaad akhri doontaa kalbarkii baa lasii kalbari doonaa insha Allah waa 8 ilaa iyo 5 ilaa iyo bad ayuu kalbari doonaa markaan ardayga saddexda juz ku tartama dugsiyada macallimiintu waxaan u sheegaynaa ardayga saddexda juz ku tartama su'aalaha waxaan weydiin doonaa waa saddexda juz ee qur-aanka ugu hooseeya waa mujaadala suuratu mulki suuratu nabai ardayga labada juz ku tartamaya baqtinasiib uu ku tartami doonaa labada juz waa mulki iyo nabai ilaa suuratu naas suuratu mulki ilaa suuratu naas wixii ku soo baxba uu leeyahay ardayga kale halka juz ku tartamaya sanad saddexda su'aal waxaan weydiin doonaa isla juz ku tartamaya sidaas ayaa la soo doontaa insha Allah wixii akhbaara iyo qaabka su'aalaha ku jiraan qolmadayna iyo macallimiinteena ay noo fadhiyo insha Allah musaabaqadayna waqtigeena aad sax inoo ilaalayaan waan guud gali doonaa musaabaqadayna qiimaha iyo qadarinta macallimiinteena aad ugu badan oo maanta hor u yahay horkacayo macallin سعيد موسى فدي وعلي الكعبة مدير مدرسة الإمام للدراسات القرآن والعلوم الشرعية iyo saaxiibadeyda iyo macallinkayga saaxiibkayga waddankayga midab fadhiya asigana ka tirsan mucallimiinta maanta ardayda isku tartamaya waa macallin maxamed ithmaan ahmed oo ah mudiirka madrasada al-iqdam lidaraasaat al-qur'aan wal-ulum al-shar'iyya aanad ka marnayn walaalkayga qaaliga marna saaxiibkayga marna aabeyga ustaadkayga qaaliga ustaad nuno oo ah mudiirka madrasada al-imam shaafi'i lidaraasaat al-qur'aan wal-ulum al-shar'iyya saddexda kursi ayaa maanta meesha ku hartami doona Soomaalida ay ku mahadnaqaan fardan isla saaraya la isku qaashay ardada ku tartamaya ka kala socdo madaarista madrasatul iimaan iyo madrasatul iqdaad iyo madrasatul ashaafici marka waxaan u yeerinaa ardayga koowaad ee ka mid ah ardada ku tartamaya saddexda juz Cabdullaahi Axmed Cawn Cabdullaahi Axmed Cawn halkan wuxuu istaagaya qaadan doonaa warqadaha
ayuu mid nasiibkiisa u soo qaadan doonaa midda u soo baxdaa loo qori doono nasiibkiisa insha بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فاستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. عبد الله بن عوف halkaa ayuu dhamaatay haddana waxaan u yeeraynaa ardayga maxamed ibraahim aadan oo ka mid ah ardayda ka fami doonta mid soo qaado وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ama ardayga saddexaad ee ku tartamaya labada juz ee qur-aanka ah
وعبد الرحمن إسماعيل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنسمه على الخرطوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم انت يكون ترتمي سلسلة الجزء لبدا الجزء هل كم حنك بالله بينا ترتمي حنك الجزء حنك بالله بينا أحلام عبد الله موسى. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى